وحنهاي وهديك دكسيدا وحنهاي وندا معلمك واجي بريبا أو بحلقة وراب شو ومضل كله iyo barnaamij kale oo ka turjumaya madal dugsiga cigaal ee gobolka Gabley oo ku soo bandhigo sabti kasta waano iyo wacdi isla markaana lagu soo jeediyo ardayda aqoonta kala duwan ee ay halkaasi ku dhigtaan barnaamijkana wuxuu kaga duwanaa barnaamijyadii hore waxbarashadu waa hubkii baahida lagu reebay barbarteeni cilmiga bulshada u baratayba barbarteeni cilmiga bulshada u baratayba kuniyo boqolaalkune barnaamij soo koobsaday culunta dugsigaasi lagu dhigo geesta kale ardayda kala duwan ee dugsigaasi ayaa ku tartamayay culunta kala duwan ee ay ka bartaan dugsigaasi iyadoo ay taasi daba socotay qaybta farshaxanka oo iyadana la soo bandhigay barnaamijkan ayaa noqonaya mid soo jiitay indhaha bulshada gobolka Gabley isla markaana hal abuuray maamulaha dugsiga cigaal لبنى محمد حسن ayaa qaaday sawirada biology-ga form 3-ga لبنى waka kaalinta labaad waxa galay sawirkaas muna sheekh xasan ayaa u gashay kaalinta labaad ee 2-ga 3-ga waxa galay axmed baa galay 4-kana waxa galay mawlid marka ardaydu aad u fiicay ma sha Allah laga shaqeynaya ayaa faylka meesha ka muuqda ku dhex jira waxa ku jira laba su'aalood oo xisaab ah labada su'aalood xisaabta ardayga waxa weeye waxa lagu tala galay laba hablood inay ka qayb galaan iyo laba wiil marka hore waa su'aasha koowaad oo kaliya su'aasha labaadna sidaas la mid ah laba hablood oo form 4 ah iyo laba wiil oo form 4 ayaa iyaguna ka shaqeyn doona qaybtaasi waa qaybta form 3-ga waxa iyaguna waxa uu yaala su'aalo biology ah oo arkaysaan halkaana waxa yaala laba su'aalood halkaana laba miis baa yaala su'aalo dul yaalaan waa diagram la sawirayo wixii la sawirayana warqad ku dhigsan meesha ayuu ku yaala waxa la doonayaa laba arrimood la sameeyo xawaaraha lagu shaqeynayo waa muhiim sawirka quruxdiisuna waa muhiim macallimiintaada baa qiimeyn doona waxa weeyaan ardayga kaalinta koowaad galay ama gruupka guuleystayba marka diyaar ma walaal sidaas hawshaas saaka hawshaasaan ku soo siyaadnay waxaan doonaynaa marka koowaad balaadayntan hawshan presentation-ka waa saak socon doontaa in aan galin fasalka form 4-ka labada arday xisaabta u soo kacaya geesta kale waxa iyaguna halkaasi ka hadlay ardaydii kala duwaneyd ee tartanka ku soo bandhigay فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات الوقت كسيف لم ينقعدك the time don't catch you the chance to the life gives you another chance then you release it thanks for listening haddaba arday markaan ka hadlayno qorsheyn horta wayna isweydiinaa maxay tahay qorsheyntu horta waxa weeye inaad ogaato halka aad taagan tahay maanta kadibna aad tidhaahdo halkeen doonaya inaan gaadho 1 sano kadib 2 sano kadib adoo waqti cayiman oo aad dooratay kadibna qodobka saddexaad ee aad isweydiinaysaa uu yahay maxaa kuu fududeynaya halkii aad doonaysay inaad gaadho saddexdaa qodob ayaa muhiima horena waxaa loo yidhi qorshe yeelo meel mara fikir qaado oo fuli qarniga aad ku nooshay haddii aanad qamarkiyo qoraxdiisa noqon karin taariikhda laga qoro qofka muuqdo u noqo ma dul yaala dunidani dadaaliyo wax lagu helo intay madashu furan tahay ruuxda kugu mataan tahay waxaad maanta jeceshay marinkooda sii baro waqtigaaga meelee maamuus naftaadana wassalaamu calaykum horta nafteen iyo nolosheen waxa u baahan tahay inaan isbedelno oo meeshan tanaan ku jirnay ma tu kala u gudubno maxaan ugu baahanayn inaan isbedelku waxa weeye sidaan cunto iyo ugu baahan tahay yahawo iyo caafimaad ayaad u baahan tahay inaad isbedesho
maxaa caqabada hortaagan inuu qofku isbedelo saddex muhiim baa ugu weyn inuu qofku isbedelo ta ugu horreysa waa caajis qofku markuu inuu wax qabto uu horumar gaadho waa caajiska ka horreeya oo uu wahsanaya isagoo wixii qaban lahayo uu hore uga sii socon lahayo wixii dhammaystiri lahaa caajiskaa ta koobaad weyn ta labaadna waxa weeyaan qofkii oo cudurdaara sababto cudurdaarkuna waxa weeyaan waa waxa shayga keliya ee hanka iyo qofku himiladuu leeyahay hor istaagi karaa isagoo meel doonaya sawray maasha allah may kala dhicin adu waxa weeye dhammaanteen kol hadday ciddii guulaysatay waa innaga halkaa waxaan in yar ka jecelahay inaan kaga yaro daro maadaama waqtiga uu iska tegey horta waxaan u hambalya inay dhammaan ardayda kusoo dhiiratay fagaaraha inay yimaadaan midda kale waxaan jecelahay hal mar in loo saaxibiyo tiimkeenna kubadda cagta oo maanta finalka koobka aan ka rajayn inay qaadaan dhammaantood loo saaxibiyo dhammaantood maxaynu leenahay cagtiina ay ku xidhan tahay guushayadu soo saasi ma aha waa muuse xuseen xasan Zomni News TV gobolka Gabiley.